reer maakhar laba ergo baa laga diray mid waa tan maanta dastuurka qoraysa soo gabagabeynaysa midna waxay ahayd tii Puntland wax ka dhisatay oo Garowe loo diray qoladiinii Garowe hore u tagtay oo maakhar metelaysay ilaa Laasqoray ilaa Yubbe ilaa Ceergaab ilaa Nugaal metelaysay oo maakhar ka socotay oo ergada inoo ka qayb gashay markii aad ragga la gorgortateen oo ergada aan idinku wakiil naga ahaydeen xildhibaanada aad noo hesheen waa garanaysaan oo 9 bay ahaayeen waxaan ay reer maakhar qoladii maakhar oo aanu ergadeeda aanu ka nimi wadankii kaga nimi baan la hadlayaa marka hore waan idin salaamaya marka xiga halka dawladda baa lagu dhisayaa ergadii idin metelaysana waa annaga haddii aanu laascaano tagnayna si fiican baa naloo soo dhaweeyey maantana waa gebagabadii waxaan leenahay aad baan ugu mahad celinaynaa dadka magaalada laascaanood jooga siday martida faraha badan u soo dhaweeyeen say u qaabileen wajigooda farxadda ka muuqata aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa qodobka kale reer maakhar laba ergo baa laga diray mid waa tan maanta dastuurka qoraysa soo gabagabeynaysa midna waxay ahayd tii Puntland wax ka dhisatay oo Garowe loo diray qoladiinii Garowe hore u tagtay oo maakhar metelaysay ilaa Laasqoray ilaa Yubbe ilaa Ceergaab ilaa Nugaal metelaysay oo maakhar ka socotay oo ergada inoo ka qayb gashay markii aad ragga la gorgortateen oo ergada aan idinku wakiil naga ahaydeen xildhibaanada aad noo hesheen waa garanaysaan oo 9 bay ahaayeen sagaalkii ergey waxa ka dambeeyay laba wasiir oo midna aanu ahayn mid xanaanada xoolaha lagu qoraa midna cayaaraha baa lagu yiri horta ergadiinii hore taas ay ahayd annaga halka laga sheegi doonaa wixii aad xaq u lahaydeen oo aanu idin doodnay sidii aanu rag wax ula qaybsanay dawladda aanu idin keeni doono waa mid ilaa meesha la yiraahdo Buuhoodle ilaa Laasqoray dawladdii isku xidhi lahayd baarlamaankeedii baa hadda la qaybsanaya dastuurkeedina maanta la ansixinaya dawladdaas u qaabili lahaydeen baa la idinka rabaa sida qolada Laasqoraanood u qaabishay anigu intaan u holaday intaa weeye halka hawsha laga wado waa hawl aan ku qanacsanahay waa hawl masiiri ah cidda wadana waa cid khabiir ah weeye cidda ergada waad maqasheen erga isleeg baa la saaray waa ay faaloodeen dastuurkana khubura loo saaray khuburada culima kamida dadkii waxaan yideen baa kamida haddaanu ansixinaynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa hawsha dawladdeena marka hore Ilaahay ha barakeeyo marka xiga Ilaahay hayna ku anfaco dahabka laga guranayo buurta iyo badda kalluunka laga guranayo inuu dawladu helay reer maakhar oo dawladda tanu nimankan waa dhinteen hadda waxaan daawaday sawirkii dagaaladu markay socdeen waxaan arkay wallaahi markaan daawaday naxdin baan u baqtiyay gabadha gurigeedii joogo marfaca inta lagu dhuftay ilmihii ay gacanta ku haysay uu dhintay kii ay Ilaahay badbaadiyay kii ay dhinaca ku haysay odaygeedii oo dagaalamayana telefoonka loo diray barnaamijkaas iyagu soo mareen inagu aan dagaalamin baynu dawladnimo helay sida mahad Ilaahay ugu celiya hadalka waxaan ku soo gabagabeynayaa dawladda federaalka waan idinku mahad celinaynaa ixtiraafkiina sidaad hawsha noola haysaan isteedka inta ka dhima soo buuxiyaa tidhaahdeen waanu soo buuxinay degdeg noo ixtiraafa si aanu hawlaha iyaga u qabsanno